السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إدلكين دقيستيال رمضان كريم كنا سو دوادا taxanahayni sheeka halgameed dareemin geerida iyo qaybtii sagaalaad waxaan noo yimid Faysal bal waran ayaan ku nidhi Cabbaas ayaa inta hadalka iga boobay la soo booday Jawhara ma joogtaa ha way daba socdaan ayuu isna ugu celiyay neef weyn ayuu saaxiibkay qaatay aniga laftayduna waan farxay gabadhii baanu isbaranay oo xaal waraysanay waa nabad wax dhibihi ma jiro caafimaad iyo barwaaqo eebba mahadii ayay si gobonnimo iyo asluub ku dheehan tahay noogu warceliyeen Jawhara inta reerka ku noqotay ayay noo keentay joog qalin ah oo caana may dhanaanihi ku jiraan haddana way isma jeertay cabaar kadib ayay nagu soo noqotay iyada oo sida falaas shaaha iyo weel ay casho ku jirto waanu idinku soo noqone si casheeya ayay yiraahdeen in yar kadib ayaanu ka war helnay salaan diiran السلام عليكم يا وعليكم السلام وفتحي iyo ninkii dhibka badnaa Abdullah Yare jaad ay wadeen ayaanu ku caweysinay hablihii oo ay weheliyaan laba kale ayaa iyana noo yimid kaftan aan xanaf lahayn ayaanu isku tuurtuurnay haasawo gud iyo sheeko geesa badan ayaanu isweydaarsanay Cabbaas dheere iyo Jawhara way iska kaan xigsan hayaan maxay isu xigsan waayeen soo dareen jacayl oo dhabi dhexdooda ma yaalo ha Jawhara way xishoonaysaa waase laga dareemayaa farxadda ay gabdhaha kale dheer tahay Cabbaas ayaa yiri gacaloy ajaladii aynu isku ogeyn waan ku wadaa kolkaasay ugu celisay una Cabbaas cadow laba ayay ahaayeen waate isna afka ogama sheegin inta recordkii galka ka soo saaray ayuu ku sii daayay heeskan halgankiya jacaylkaba uma kala hadhayne waa goor caways ah wali lama seexan dadka badankiisu way soo jeedaan maalinimadii waxaa daay hogo lagaga qaboobay fallaadhihii kululaa ee cadceedda daruuraha ka cabtay ay ku soo liishaamaysay sagxadda dhulka jabaqda buuqa iyo bulaanka reerka ayaanu halkan ka maqalaa annagu si hoos ayaanu u sheekaysanaynaa waa dharab oo halka qof ee dhawaaqa ayaa bixinaya 10 cod oo kala duwan jawigu isagaaba farxadda beeraya waaba habeenada faalka jacaylku baxo oo si uun laabaha isdoonaya isugu soo dhaweynaya roob gabaxle ah ayaa dhibicdiisu korka nagaga teexaysaa waxaa dhacaysa leer qabow cirku wuxuu huwan yahay daruuro cadaan iyo madow isugu jira meelaha qaarna wuu qalalan yahay daruuruhu meexaano carashada ayay kolba gees u guurguurayaan dayuxuna isaga oo aad moodo inuu kolna ruclaynayo kolna kadlaynayo ayuu marba daruur gelayaa oo haddana ka gudbaya saxan udgoon ayaa dhinac walba ka soo carfaysa waa habeen cadda ah balse fadadka iyo daruuraha baalaha iskula jira ayaa ciriiri geliyay nuurkii dayaxa jiraamaha iyo meeshii godanba waxaa waran xareed raha dananaya iyo codka talantaaliga ah ee jaadadka kala duwan ee shimbiraha oo sayuxu codka u sii dheeraynayo ayaa si aan kala joogsi lahayn mid walba luuqdiisa ugu yeedhinaya cida waraabaha ee aad moodo inuu dhaaranayo xoolaha maqribka xeryaha lagu ekeeyay iyo qosolka dacwada ayaa si fiican duleedka reerka looga maqlaa dhalinyaradii kale inta aan fasaxnay ayaanu Jawhara la soo hadhnay Jawhara waanu ismagac iyo muuq naqaanaa marar badanna reerka siyaabo kala duwan ayaanu ugu nimid waxaa isugu kaaya dambeysay horintii koobaad ee ururka baali jeerkii aan ka tirsanaa kolkaas oo ay reeruhu naq u doonteen karan galbeed ka da'day iyada oo la moodo roob la dhac jaaheeda balse barasho la sheega caawna ugama horreynin waxaan u bogay miyir hadalka sheekada furfurnaanta qalbisamideeda ka marakacaya xurmada raxmaanku ku hagoogay gabadha xilkasnimada hooyadeed sooban ay ka raacday iyo gobonnimada ay isirsanayso sheekha dhalay hoostan ka ducaynayaa in ayna calaf isku seegin oo rajada saaxiibkay uuna Allah subxaanahu wa ta'aala goynin inta aan daboobo arar ah ku furfurtay ayaan u daba saaray ujeedadii aanu ugu nimid oo ay iyaduba malayn karto ujeedadaas oo daaranka biyo dhiijinta galgacaylkii muddada ku soo nagaaday laabahooda
iyo axdigii dhexdooda ka dhaxeeyay ayaan ooga baxay saaxiibkay Faysal haddaana xaasidaynin wuu iga aftahansanaa dhanka aqoonta diintana bara ayuu i dheeraa qushigiisa isaga oo ka dab qaadanaya hibadaas oo alla siiyey ayuu xikmad wixii maankiisa ka soo dhiiqayay iyo hadal naflihii maqlaa uuna ka caajisaynin jawharo dhagaha ugu shubay axaadiis aayado quraan iyo mahmahyo ku qotoma fadliga guurka ayuu hadalkiisa ku googooyay waxaa kale oo uu sii raaciyay sawir uu ku tusaaleynayo duruufaha ku xeeran halgamaaga jacaylka ballanta iyo aayaha nolosha ugu dambayn sidii hiddaheennu ahaana inta uu ku arooriyey ayuu hadalkii kaga baxay wuxuu annaga culaysku nagaga dhici karo waa guurkiinna oo keli ah way kuu dhammeeyeen soo kuma faraxsanid iyo balcodkaaga ka dhiibo gacaloy ayuu ku soo afmeeray mucaashaqiina jawaabta jawhara ay ku dabeeban doonto maxay noqon ma aqbal bay odhan may deedifayn may ka cudur daaran oo waqti bay ku xidhi oo ma waqti kan guur kaga habboon ayaaba jiri kara ilama aha cabaar ayay aamusnayd oo xishood iyo habnugayl haween la foorartay ileen aadamaha kolkii horeba degdeg baa laga abuuray waanu tiigsanay jawaabta gabadha su'aashan oo aan shaki ka taagnayn hoostaan kolkiiba iska weydiiyey la soco qaybta 10aad iyo taxanaheena sheekaalgameedha dareemin geerida